aad u jeedaan oo ka qoray barnaamijyada BBC da laanta afka Soomaaliga ka soo maalin walba uu dhageystaa una qoraan barnaamijka qofka soo saaray qofka warka akhriyay iyo qofka idaacadda daadiyay bal buugga wax yar aan ka fiirino loo sameeyay magacyo taariikhda uu leeyahay waa 10 bisha Abriil BBC da duhurnimo labada Afrikada bari markay tahay waxa soo saaray wariye Ahmed Cabdinuur oo London jooga waxa daadihinaya Cabdiraxmaan Bidhaan warka faarax lamaay faafaayinta qodobada barnaamijka lagu soo qaatay waxa kamid ah wiil madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa furay shirka madasha oo wax lala yaabo oo horaan u socono taariikh kala soo xulaya 12 bisha isna qoray wiil BBC da idaacadda duhurnimo waxa soo saaray Daaga Xasan Cismaan waxa daadihinaya Cabdisaaq Catosh waanigan hadlaya Ahmed Xaaji Xasan ayaa warka akhrinaya qodobada lagu soo qaatay waxa kamid ah wiil iyadoo la soo gabagabay shirkii madaxda Soomaalida ay ka socdeen Muqdisho waxaan maxaa ku kalifay waxay u kalifay Catoosho wixii la qoran xariim ku hadafay maleeyahay aniga iyo odayga xanuunsanaya ee kuraashka jiifo haddana inuu noqono BBC dhageysano wax macnaayay sameynaysa ma jirto laakiinse bariika maalin nin baa xil laga qaaday nin baa loo magacaabay leer bay masiibo ka dhacday goorma ugu dambeysay ninka xil loo magacaabay goorma ugu dambeysay halka masiibo ka dhacday goorma yahay inaan anigu buuggayga aan ma dhageysataa marka waxaan diyaarinayso idaacadda dhageysataa deedna waa qofka waxaan ku sii qoraa buug yar oo rafaan ku sii qoraa qodobadan sii dejistaa dabadeedna markaan fadhiistay BBC dhammaanteed aan wada dhageysto ayaan dib u qoraa BBC da ogtahay waxaan weligaa ma la xiriirto ma u sheegtay inaad kaydiso wararka waan isku dayay inaan la xiriiro laakiin se wax jawaabo kama helin goormaad bilowday shaqada waxaan bilaabay 2005 baan bilaabay inaan san u qoro oo dawladda Soomaaliya marka ay ka taagneed waxyaabo muran ka taagnaa Cali Maxamed Geedi iyo nimankaas wasiiskii baa ay ku wacnaa oo bilaabay nin la yaab lahayd koodhe meeqa buuqa hadda ku diyaar ilaa iyo intaas oo dhan inkastoo waqti oo kala diyaar ku jira hadda in badan waa laga helayaa oo taariikhda oo ay Soomaaliya ay marka waa warkii cajaladaha lagu duway adiga buuka buuxis ayaan buuka buuxiyay maxaad qabatay shaqada anigu waxaan ahay dad qaarkoodina isiraadan BBC ku shaqeeya mushaharna laguma siiyo waa suuragal laakiin se waan shaqaystaa macallin baan ahay maamulaan ahay iskuul baan maamulaa wariyaan ahay oo ilaahay waxaan shaqeeyaa TV loo kala shaqeeya marka shaqada way fara badan tahay waqti fara badan waan siiyaa BBC inaan dhageysto dabadeedna aan qoro in badan baan siiyaa aad baa mahadsan adam saaxiib BBC da aan loo ogeyn baa watahay aad iyo aad baa mahadsan